السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي واني السلامة ميل walba dunida ku joogtaan soo dhawaada. Asxaabay arin la yaab leh ayaa jirto maalmahan labadan maalin laga soo bilaabo wiigan soo dhaafeynay ilaa hadeer. Arinkan waxa waaye dadkii baa la gaaleynaa ummadii muslimiinta ahayd kuwa iimaankooda daciif yahay waa la gaaleynaa. Mombasa County gaar ahaan Lamu nin waxa imaaday pastor ah misana nimankan maaragtay diinta gaalada faafiyo oo gaal ah ayaa imaaday oo iskugu yeerayo marka wuxuu isdhahayaa waxaan ahay nabi. Ninka walaahi muslimiinta kuwa iimaankooda daciifka ah waxa waaye dhankiisu marsanayaa wuu halaagayaa. Mid ugu yaabka badan waxa waaye dad badan ayaa hadda soo diintooda maaragtay u macaaneeyay. Waxa ka koo ah gabar sheekada gabadhan ana waan ka yaaba aad iyo aad baan ula yaabay. Gabadha waxaa la dhahaa Jamiilo. Waxay tiri ani iyo hooyaday waan xanuunsaneen in muddo ah baan aad u xanuunsanaynay. Sheekh walba waa naloo geeyay. Wax ma aragtay isbedel ah maana dareemin. Xanuunkeenana waxa waaye hadda saa u joogno dhuuntaana la qabani. Saa u joogno xitaa maxay dhahday biyo ma cabi karno dhuunta dhab meel walba waana la geeyay. Xanuunkaas waxay dhahday in muddo ah baan maaragtay aan la rafaadsaneen dhakhtar iyo amase sheekh waan ka daalnay meel kasta waana lagu fiiriyay still xanuunkii wuu nahaaya oo marba si loo joogo dhuuntaan ugu la dhagi. Waxa ma laqi karna waxa moodaa meeshan dhuunta inuu dhagaxnoo taagan yahay. Markii dambe waxay tiraaday ninkan gaalka ah ayaa naloo sheegay maaragtay nabigan ay dhahaysaa marka nabigan ayaa naloo sheegay inuu dadka caafiyo. Bas ani hooyaday waan u imaanay anaa marka hore u imaaday tire wuu ii duceeyay subxaanallah bal fiiri wax quraanka ilaahay daweyn waayay miyaa nin gaal ah daweyn kara. Wuu ii duceeyay kuti markuu ii duceeyay waa noqday xaafadan ku noqday casirkii markii la joogo maxay dhahday waa ma tagay wax nooc kala ma tagay tiraaday wixii meeshas dhuunta iga taagnaan jiray mise dhuunta iga ceejin jiray markii igu dambeysay yacni waan ka caafimaaday. Marka waan aaminay tiraaday inuu maaragtay nabigan dadka caafinayo. Kaniisadayna dhex fadhidaa markiisas dhehaysiya waana la duubayaa maaragtay TV-yadan caalamiga Citizen iyo KTN ma aha TV waxaa jirto maaragtay yaryar oo maaragtay oo waxaan gaalada ah maaragtay zaid u soo duwaan. Marka meeshii TV station meesha jooga oo ka duwaya idaacad TV ayaa duwaysa waa la duway kabaran meel walba ayuu ku faafsan yahay videogeedii ama TikTok ama meel walba dadka Soomaaliyeed xilka yaqaanaa mise Soomaali si jooga waa aragteen sa u maleynaa yacni walaahi waa iimaan daro waaye. Markay ay joogtay adii maalmo kadib haddana waa tanba ayadii oo maaragtay dhehaysa hal iga raali noqdo qalad baan galay wixii aan sheegay dhamaale been waaye ilaahay ayaan cafis weydiisanaa idinkana ii soo duceeya ana diintayda waan ku soo laabtay ilaahayna ha ii dambi dhaafo ii soo duceeya. Ninkan waxaa la dhahay markan dad maaragtay sheekhyihii dhankaas joogeen Lamu ayaa hadda dabagal ku sameynayaan. Nin waxaa la soo ogaaday mid oo maaragtay asagana meesha saas ka dhahay ati nabigan baa i caafiyay oo taajir iga dhigay nabigan baa sa yeelay. laba nin ayaa maaragtay hadda la wareysi lala sameeyay. Mid muslimba ma aha laakiin waxay u soo xireen qamiis iyo maxaa la dhahaa ii sheeg cimaamad qamiis iyo cimaamad ay u soo xireen laakiin muslim ma aha. Midka kale wuxuu dhahay lacag baa la siiyay oo midkaas markii lacagta la siina uu lacagta loo balan qaadayo xitaa clipkaas waa la arkaya. Wuxuu dhahayaa waxaan kuu gadayaa TV waxaan kuu gadayaa frinjeer waxaan kuu gadayaa solar yacni bahalka ma aragtay oo meelaha korontada gaari laga isticmaalo ama dabka gaari laga isticmaalo oo oraxda isticmaalo solar weyn aan kuu gadayaa waxaan kuu sameynayaa kanaan kuu sameynayaa. Qof maskiin ah oo haddana ma aragtay iimaankiisa zaid u adkeen haddii la dhaho intaasoo shay aan kuu sameynayaa dabcan waxa waaye iska jilcayaa samaha. Ninkaas hadda dabagal kuleyto ku socdo waana la soo ogaan doonaa maaragtay wuxuu damacsan yahay wuxuu dadka ka damacsan yahay waana la ogaan doonaa marka wuxuu damacsan yahay. Dadka qaar ayagoo gaalo ah ayuu dhahaa intuu usoo xiro qamiis mise cabaayad uu dhahaa muslimiin iska dhiga waxaa dhahdaan diintan sheekhdii way cafin waayeen nabigana i cafiyay subxaanallah nabi waa nabi ilaahay nabi adduunkan jooga malaha.
nabigana i cafiyey bla 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 waa been waxba kama jiraan waxaas dhan soo marka asxaabay arrinkaasita oo yaab kale ayaa labada maalin socdo bal waa arki doonaa anaa la socdo oo arki doonaa marka wiilashaas nimankaas maaragta ku dabajirka ku sameeyo waxay kusoo sameyn doonaan laakiin iimaanka wallaahi iimaanka waxaa waaye shay qaali iimaankaada hadduu daciif yaho bis waa wallaahi waa ku dhamaatay gaaladina way arkeen dee waxay raacayaan dadka masaakiimaha ah maaragta oo daruufaysan oo laga faa'iidaysan karo qof iska daruufaysan haddaad tiraadid waxaan kuu gadaa intaasoo shay waxyaaba uu haysanin mise waxyaaba weligiis xitaa uu arkin waan kuu gadaa haddaad aadid qofkaas iska kaa soo raacaya somaa taas waxa waaye shakim ku jiro marka asxaabta qaaliga ah sheekadaas aan ka dabageenahay fadlan please haddaa igu cusub tahay channelkan subscribe iska saar videoga like ii saar ha iga xasdin gambaleelkana furo subscribe inta ii saarta ha iska bixin gambaleelka furo aan isla soconno insha allah walaashin le ahay soo maaha isla soconno marka insha allah dhammaantiin waxaan idiin rajeynayaa meel walbaa joogtiin farxadda ha idiin waarto caafimaad aan idiin rajeynaya maca salaama